munaasabad ballaaran oo afuriya casho sharaf faa'iido lagu soo dhaweynayay laguna maamuusay xildhibaan Hooda Cabdilaahi Xasan oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Turku ee caasimadda labaad ee dalka Finland ayaa lagu qabtay hoteelka Golis ee magaalada Burco. munaasabadani ay soo qaban qaabiyeen maayir ku-xigeenka degmada Burco iyo maareeyaha wakaalada biyaha Burco ayaa waxaa goobjoog ahaa qaar ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco. waxaana ugu horreynba munaasabadani ka hadlay maareeyaha wakaalada biyaha Burco Master Jirdi, ku-xigeenka duqa degmada Burco Master xoda iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco oo si wada jir ah u soo dhaweeyay xildhibaan Hooda kuna tilmaamay muwaadiniinta had iyo jeer dalkeeda jecel isla markaana horumarkeeda ka shaqeysa. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa xildhibaanada ugu qaaliga ah ee Hooda Cabdilaahi Xasan ee ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee Finland. sida aad ugu fikiraysa dalkaaga iyo gaar ahaan gobolkaaga inay uga mid noqdaan dalalka caalamka oo kale aad baan ku soo dhaweynaa, aad baan ugu faraxsanahay inaad caawana runtii nala joogto Burco. aad baan Hooda ku soo dhaweynaa, aad baan ugu faraxsanahay imaatikaagan aad wadanka ku timi. waxaanu leenahay Hooda ku dayashay mudan tahay iyada oo waqtigii aanu aniga iyo maayir ku-xigeenku aanu wadanka tagnay imaatikii aanu wadanka tagnay iyo nidaamkeedaba iyadu maskaxdii ka dambeysay dadka dawladda jooga sida Hooda kale u shaqeeyaan اعترافكم بره ما الله بينات. عندنا روتي حلبانات قالية قبل كقالكوا كقولة ديجان هنا نولا شغسان جوا وكالة بيها ولا نهي كسودو دلخاغي كسودو دلخاغي هويو. لينيا حلبان هودا أورنتي إنتي أنو قبل كان شغني أما دجمنا برا شغني وحبنا رقبتي. هودا أو آد ولد شيء قبل كتوغلر وحد بانو عليني أنا جوا حلبان كي وجود وينا حلبان هذا قبل كتوغلر وقولها الدجان بدينا حلبان هذا يا كوديرات سداي هذه شروقة دادعي سبيش عالم كقضية يشرتان كالصومالي لان وقنا ما عليس السيدة بلارنا يوم موسم قولها الدجان كي ماريا وكالة برعو. هاي تلفت دمدين يبين مقع الصومالي لان iyo inay Soomaaliland tahay wadan doonaya inuu wax horumar badan gaaro oo wax qabsado. mahadnaqa badan ee la soo jeediyay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin. Soomaaliland meel kasta ay joogaan waan hambalyeynaya nabadda iyo wanaaga iyo kartida iyo sharafta iyo isku duubnaanta ay muujiyeen. waa Khadar Cabdirasaaq Salebaan Hadwanaag News magaalada Burco.